xanuunka marka waxay aad isugu dhow yihiin sixir takhayulka waxa la yiraahdo fircoon tiimkiisii waxay isticmaaleen yukhayalu ilayhim annaha tas'a fa ujaza khifatan Musa yani ushi inay soconayso wixii gudihii ku jiro banaankii waxba ka jirin yaa u sawirmaya markaasuu waxaa weeyaan run u qaadanaya adigana ay kugu adkaani inaad u sheegto in uu maaragtay marka fiiri neerfihii iyo sixir takhyil way isu dhow yihiin kala geyntoodii maxay u baahan tahay qof mutamarrisa oo ilaahayna ka cabsanaya wixiina cilmi u leh zaadka iyo tawfiiqda bad ilaahay baa iska leh gabadh akthar min 17 sano hawadu ka maqnayd oo networkeedu maqnaa oo hal mar markii quraankii aan ku akhriyay ilaahay bogsiyey suuratul faatiha kaliya aan ku akhriyay quraan kale kuma akhriyin faatiha suuratul faatiha kaliya 12 faatiha aan ku akhriyay wadaasa isu bedelaysa waxa weeye bakteeriyadaasna waxay qabsanaysaa cufka caloosha darbiyadeeday isku dhajinaysaa sida caaradii way isku nabaysaa way boogaynaysaa aalsadana iyadii un baa noqonaysa waxaa kaloo rabaa inaan idinku daro bulshada Soomaalida xanuun la yiraahdo qoloon العصبي bay Soomaalidu qabaan iyo Carabuhu qoloon العصبيna waxa weeye wax la yiraahdo cunno allergy lagu leeyahay iyo waxyaalo allergy lagu yahay gluten ko kale waxyaalo qoloon العصبي marka waxa weeye waa cudurro isku aruuray calaamad buu yahay gaas bay moodayaan inay qabaan waxa weeye maanta dhan dawo gaas bay cunayaan waxay qabaana waa cunto ay calooshoodu diidan tahay halka loo yaqaano مثلا lactose oo kale lactose ama gelatinka waxyaalahaas oo dhan bay Soomaalida iyo Carabuhu inta badan waa isku waxaad moodaa inay isku jiinaad yihiin waxay ku yihiin allergy qoloon العصبي baa la yiraahdaa waxa macaan oo dhan inuu iska joojiyaa la rabaa gabdhaha Soomaalida oo iyagoo 15 jir ah inta badan ay ku imanayso waxa loo yaqaan maartay hormone imbalance uu ku imanayo waxa mas'uulka ka aqlabku waxa weeyaan cunooyinkan khaldan iyo waxan macaan ee daldalaya waaye hadduu khalal hormoonka loo yaqaano insulinka markuu khalalka ku imaado intaas oo hormoon iyo intaas oo muxuu ahaa wax buu halaynaya gabadha iyo 15 jir oo 16 jir iyo dhiig furan ku imanaya burooyin 10 bura makaankeedii yaa galaya kulli waxa sababayana waxa weeye khalalka waxa weeye macaanadan faraha badan bulshada Soomaalidu marka wixii uma kala soocno waxay wax ku yihiin qaar baa cuntadii oo dhan ka tagi oo waxay ku leeyihiin gaas baa ayaan qaba waxa dhibka keenayna waa wax yar oo muayana oo haday wada cilmiya u maraan ay ka bogsan karaan mucaalijiinta ee laga yaabo inay iyaga naftooda wixii u cilmi lahayn waaqicadii la kulmaysayna ay dadkii maqlahayaan qofkii isagoo dad badan ku dhex jiro wuxuu leeyahay xanuun waa la qabtay waa la sixray waa la sixray kuwii agtoogo dhan baa qaadaya inay wax qabaan ayaga dadkii way maqlayaan soo maaha warkii way sii gudbinayaan qofkiina wixii markii lagu celceliyo runbuuba u qaadan halka soo maqlis meesha marka waxa weeye dhibka ugu badan ee jira waxa weeye xanuunada jimanka iyo xanuunada neerfaha calaamado muhiim ah oo lagu kala garanayaa jira haddii de hadda aan dhahno aan halkaan hadda uga sheegno waxa laga yaabaa qaarkood inay si xun u isticmaalaan soo mu garanaysa marka calaamado muhiim ah oo lagu kala garanayaa jira qofkii iigu imaado oo doonaya inaan maaragtay ujra kama qaato muqaabaladeedu lacag ma aha qofkii doonaya oo hadda ragga cilaajyada ka shaqeeya rag badan oo fiican oo maaragtay meeshaadii ku adkaatay iigu imaadaa jira laakiin inta badan hadda iyaga naftooda cilmi kororsiino ma samaystaan oo dowraad malaha waxyaalaha ay hadda ku eedeysan yihiin bay ka mid tahay bulshooyinka kale cilmigan hadda kaleetay caafimaadka waxa weeye mar walba wixii soo kordha qofka waa lagu update gareynayaa oo maartay seminar buu qaadanayaa way kala faa'iideystaan ragga wala kala faa'iideystaa qolyahan laakiin oo mucaalijiinta aqlabiyadoodu waxay ayaga kordhistaan mooyeen cid kale kama qaataan cilmiga uma doontaan dhibkeeday ka mid tahay waxyaalaha hadda maanta dhibka ay ka mid tahay marka aad baa u mahadsan tahay soo dhawow sheekh walwal sabab la'aan iyo cabsi qofka iskaga dhacda ayaduna maxaa keena xanuun kala haynin iskama imaanayo jirro un baa keentay sababteeda hadduu rabo jin ha lahaado neerfa ha lahaado walwalku iskama imaanayo biduuni sabab ilaahay bini aadankan iyagoo mucaafi u abuuray oo wada sax ah waxaa weeye markay wax soo dariyaan sabab unbaa jirta wixii sababay dhibkaas inuu imaado unbaa jira
ويفهمسنين وإن لحلقهم وإن قفكوا ودديسي قاضوا oo tii hadda aayadda qur-aankayda ilaahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inuu cid u sheego annaga hadda dad aad u fara badan baan la fadhiisanaa oon talooyin siinaa wiilal iyo gabdhaba leh qaar badan baa ogolaan inay xanuunka qabaan qaarka intooda badanna weydiini familkii baa keeni qaar baa iyagoo dhibka badan oo hadda maanta jirana waxaa ka mid a dhallinyarada waalidkood waxay u haystaan inay dad maaragtay aan iska yar ree baadiye aho aan waxba fahansanayn inay yihiin bay u arkayaan kolkay xanuun uu qabto waalidkiiba lama sheer garaynayo goor dambe oo uu dhibkii ku fogaaday yuu laga yaabaa in maaragtay waalidkii markuu soo qabtana wuxuu leeyahay waxaa weeye wayba yasahayaan in badan oo ka mida waalidkood bayba yasahayaan waxay u arkayaan ninkan ay laaf yuu garanaynin inuuba reebaadiye yahay bay u haystaan marka dhibkaana iyaduna waa jira hadda dhalinyarada in badan oo ka mida in ay xaaladooda way qarinayaan way qarsanayaan aad bayna xanuunada u badan yihiin miitaal yar haddaan kusiiyo adeer nin baa ii imaaday halkanuu ii soo fadhiistay waa nin xaafidulqur'aana waa nin diinta wax ka garanaya wuxuu igu yidhi calooshaydii waxaan kaga imid musqushii masaajidka haddaan tolnahay kaale ila doon calooshaydii calooshaydii musqusha masaajidkaan kaga imid buu yidhi kaale ila doon ma maqlaysaa yacna ninkii ugu dambays adu waa maaragtay waa fiicnaaday waad quraan saarte maya dhakhtar baan geynay waan qur-aanka isagaaba yaqaanay anigana waan ku tufay laakiin 80% dhakhtarkii xanuunkiisa khuseeyey baan u diray mar dambe waxaan isku aragnay xaramka waan isku aragnay asagoo fiican waali dhowna hadda xabaal baaban isugu nimid wuu bogsaday wadadiisii xanuunkiisii wuu gartay laakiin neerfuu qabaa maradul fisaamkan kuu sheegayo qabaa waswaas alqahri buu qabaa depression buu qabaa oo muxuu ahaa xanuunadu marka hore ay bilaabanayaan way kale marka dambe laakiin way isu wada tagi neerfuhu intooda badan way isu wada tagayaan way durkayaan marka dhibkaasaa jira hadda waxaa kaloo xasuustaa inkastoo hadda laga yaabo carabka in lagu sheego inay la mid tahay loojadkan sabanka ee sii jeeda waa la wada deganaa gabdhihii iyo wiilasha iyo qolol bay ahayn waa la degi jiray marka guryihii hore hal musqul baa ka dhexaysa rag iyo dumarba gabadh baa musqul gashay way ka soo baxday nin baa ka dambeeyey oo isna xanuunada neerfaha qaba musqushii markuu tegey wuu ka soo noqday isagoon gelin albaabkiibuu ku soo garaacay gabadhii gow 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 gabadhii way yaabtay albaabkii ku soo garaacay gow 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 way furtayoo war maxaa jira naa wax yahay xil kale waxaagay xil kale habaad meesha kaga soo tagtay kaale wuxuu yidhi naga soo qaado ma ujeedaa ninkii gabadhii wuuba ku qamaamay nimankii rabsashankaa soo boodeen nin hadda muxuu ahaa aan saaxiib ahayn oo hadda maqan baa muxuu ahaa meesha isagoo soo galahayo la kulmay meeshii ninkii dagaal buuba geli gaadhay waa la qabtay markii dambe asagii walaalkii baa imaaday loojkii baa laga waday wuxuu qabay xanuunada neerfaha abuu qabay wax allaale wixii uu takhayul ahoo madaxiisa maaragtay kaga uu ka helay yuu u malaynayaa inuu bannaankii yaallo oo run yahay wax jirana ma aha xanuunkaa marka waxay aad isugu dhow yihiin sixir takhayulka waxa la yidhahda fircoon tiimkiisii waxay isticmaaleen yukhayalu ilayhim annahaa tasca fa ujaza khiifatan muusa yacni ushii inay soconayso wixii gudihii ku jiro bannaankii waxba ka jirin yaa u sawirmaya markaasuu waxaa weeyaan run u qaadanaya adigana ay kugu adkaani inaad u sheegto inuu maaragtay marka fiiri neerfihii iyo sixru takhyiil way isu dhow yihiin kala geyntoodii maxay u baahan tahay qof mutamarisa oo ilaahayna ka cabsanaya wixiina cilmi u leh qofkaan la bakhaylahaya jiran oo wanaagiisa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almustashaaru mu'taman qofku markuu kuu imaado waa qof ku aaminay qof aan ku aaminin wuxuu kuu soo doonanayaa dhakhtarnimo waa inaad marka waxa isaga ugu fiican inaad la qaabishaa laga rabaa meesha hadda waxaa ku jira kitaab la yidhaahdo الطبيب يعني أخطاء أي دكاترة سميان وكهضليا هذا تجيسد اختار بعد تجيسا معلمي هذا الصور ضعفي بشي بسودو وحلقة يابا كروين كي مشاردي يوحي إنا يصاب حين مركز ساعة وقتكتو
wuxuu kuu dirahayaa 300,000 oo baaritaan ah wax kaa khuseeya ma jiro wuxuu kaa raadinhayaa kharashkiibaa soo dhowaaday mooyeen mujeedaa yacni wadaadkaa wuxuu yidhi 700 oo brofesor ka badan baan kala fadhiistay arrintaa baadilka ah oo dadka lagu wareerinayo la leeyahay baaritaan aan khusaynin qofkii baa loo diraya hadda maalan ani waxaa isoo maray gabadh baa ii timid waxay igu tiri nin dhakhtaraan u tagay wuu ibaaray wuxuu ii yidhi xanuunka ku haya dhakhtar aan aniga ahayn haddaad u tagto waa dhiman dhakhtar aan aniga ahayn way nooshahay gabadhan islii bay deganta ninka ku yidhina waa dhakhtar islii jooga wuxuu yidhi nimaan ani ahayn haddaad u tagto waa dhiman macnaha aniga i xirno ammaane xumadaana way jirtaa waa qayb cudurrada waxa kordhinaya ka mida dadka marka dhibana waxay u yihiin dhakhtar xun qofka jiran sideedaba 3 dhib baa ku jira dadka xanuunsan ama aan 4 ba ku dhaho wuxuu u dhaxeeyaa dhakhtaraan ilaahay ka cabsanayn ama aan ku dhaho naftiisiibuu dhibaya isagaa isdhibaya ama familkiisaa dhibaya jacaylka ay u qabaan bayba mar ku dhibahayaan familkii naftiisii qofka dhakhtar baa dhibi qof wadaad cilaajla baa dhibi imise qof uu ku dhex jiraa imise dhib buu u dhexeeya isagaa naftiisii dhibaya familkiisii baa dhibaya dhakhtar baa dhibaya wadaad mucaalijaa dhibaya mar walba marka beeshantigii boodhigii jiranaa waa dhibane wuxuu ku dhex jiraa mixna manaxaanuu u kala galay isagii oon isu naxaynin marmar in badan familkii oo laga yaabo qofka hadda beri baa waxaa la ii keenay wiil 3-4 jeer baa hindiya lagu celiyey waa wiil yar ahaa 15 sano mise 14 sano jira wiilkaa wuxuu qabaa nafaqa darro basaa haysa afar jeer baana lagu celiyey hindiya raqbadda waalidkii unbaa hindiya loo geynhayaaye raqbad dhakhtar ka imaatay ma aha kuwii hindiyana waxaa laga baari cunugii neerfaa waxaa laga baari kambiba la saari ma qof nafaqa calooshiisii cuntadii jirkiisii uu daciif yahay cunto unu baahan waxaa laleeyahay cunuga cunto fiican siiya ku kalaa soo gelahayee naga baxa kuma qancayaan way wiilkii markuu iskuulladii ka hadhay hooyadii wiilka dhashay baa cunaha ku dhegtay odayga waxay tiri ama ifur ama ninkan la sheegahaya yusuf xogweyne la dhaho iige wiilkii markii la ii keenay waan fiiriye waan arkay haddaan dhaho wiilka nafaqa daraa haysa ninka waa nin milyandheera dagaal baa la gelayaa laa hawaadata fiihi waxaa laga yaabaaba in inta askar la ii keeno aniga dhanba daakum la iga dhigi lahaa waxay noqotay si wiilkii aan u badbaadiyo inaan waddo dheer maro 2 bilood kadibna wiilkii waxbarashadiisiibuu ku laabtay ujeeda kolkuu wiilkii fiicnaaday kadib baa marka la ii imanaya taariikhdii iyo wixii soo kala maray la ii sheegahaya marka ma fahanta in badan oo ka mid a marka saas hadda qisadaasoo kale akthara min 200 oo jeer way isoo martay qof nafaqo u baahan oo isbitaal la daba ordahayo qof biyi u baahan 20 sano dawo cunahayay oo waxa haya uu yahay acid biyo la'aan jirkiisa ku jirta kaliya ay tahay oo markuu biyihii cabay ilaahay bogsiiyey subxaana wa tacaala isagoon xabad dawo la siinin iyo wax nafaqa oo cunno oo la siinin ayna jirin caafimaadku marka waxaa weeye waa fahan qofku inuu qofkan intuu u dhabagalo fiiriyo daraaseeyo uu u haysto waxyaala horoo soo maray uu ku qiimaysto waayo aragnimadu waa untaa ma ogtahay qofki inaad wixii horey kuu soo maray waxa dambe aad ku qiimaysatood isu fiiriso soo ma in badan marka ciladahaasaa jira aad baa u mahadsanta adaa mudan sheekh qur-aanka intaad dadka saaraysay waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ee kusoo mara maxay ahayn hadda horta qur-aan saar iyo mufuro waan joojiyey sax waxyaalihii laakiin intaan qur-aanka saarayay isoo maray haddaan ka sheekeeyo oon wixii isoo maray iyo mucjizaadkii iga soo maray haddaan ka sheekeeyo idinkan hadda i wareysanaya hoostan baad iska qandhuufanaysaan waad qoslaysaan waxaad leedihiin doqon isku dhex yacsan yahay nin
عاوي عادي معهم بس دحيسان khibrad يعني لما رميسن كرو وحي يعني برنامج تاس iga soo qabsaday يعني waa wax cajiib ah oo runtii qofkii wacayilana uu wax badan ka faa'iidayo qofkii kale tan laga yaabo inay marka qaar kood ku noqoto fidno oo uu maleeyo in ay maaragtay marka hadaan hal iyo laba kaaga soo qaado waxa ay soo martay maamo meelo badan la geeyay isbitaallo badan la geeyay dal iyo dibad jarmal xitaa la geeyay iyo nin soo qasbay oo meeshaan dadka quraanka ku saarahayay baa la keenay quraankii markaan akhrinayay muddo 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo aan quraanka akhrinayay maamadii sida baashan ilmuhu ku ciyaaraan samina fataatiirta anaga dhigi jiray baleelna waa la dhahaa Soomaa bay kor u booday waa qof weyn oo 60 jir ah oo waliba miisaan leh dhulka ku dhacday iyadoo fadhiday boodi halkaan oo kale iman salkay dhulka ku dhufanaysa miyirkeediina ma maqno ogow saasa ay fiirisa waxay tiri waar yaahe waar ma korontaa guriga kuugu jirta koronto miyaa kuugu jirta baa guriga kuugu jirta quraan baa la akhrinaya mar dambe hadaad hadasho iska jir baan ku yidhi aamus maamadii rab ilaahay fadligiisa kuwana kuma dhacdo say rab u lahayd bal dhaqbay tiri miyirkii baa ka tegey muddo 2 saacadood mise 3 saacadood bay khadka ka maqnayd qolkay soo miyirsatayna ilaahay waa bogsi muujada waankii dambe ii timido laba wiil oo dhashay iyo gabadh iyagoo isla socdaan bay ii imaadeen waan fadhiisanay waxay tiri eedow kulay eedan ku ahay niyadayda weligay kuma soo dhicin qur'aan uu qof akhrinayo keligii ah yaa awood qof 60 jira sidii kubadii ama baliishi inuu dhag ka siinayo marnaba waxay tiri niyadayda kuma soo gelin marka waxaan u malayn bay tiri inaan muslim baahayn baaban isu malayn sababtoo tahay quraankana quwadaas leh niyadaydaba ma soo gelin bay tiri maamadii hadda inay dhimatay inay nooshahay warka ma hayo muddo hadda laga soo wareegay waqti fog bay ahayd 20 sano ka badan baa ka soo wareegtay qisada hadda maamadaas oo kale way soo martay waxa kale oo isoo martay oo horeyna waan u sheegay mucjizaadka iyo tawfiiqda bada ilaahay baa iska leh gabadh akthara min 17 sano hawada ka maqnayd oo networkeedu maqnaa oo hal mar markii quraankii aan ku akhriyay ilaahay bogsiyay suuratul faatiha kaliya aan ku akhriyay quraan kale kuma akhrin faatiha suuratul faatiha kaliya 22 faatiha aan ku akhriyay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa la mid ahayd mid saas oo kale iyadana intaas oo kale hawada ka maqnayd oo iyadana qiso cajiib ah oo gooni ahayd oo iyada ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay gacmaha qabtaan ku yiri hooyadeed abtigeed walaasheed walaalkeed lugtiya lugaha iyo gacmaha qabtaan ku yiri calooshaan kaga istaagay afartayadii oo dhan guriyihii gaagabnaa saqafkii bay nagu wada tuurtay hal mar miyirkiina waa u soo noqday gabadha marka waxa noogu cajiibsaneed gabadh jaamacadii la foolo dhigan jirtay bay ahayd waxyaalihii noogu dhibadnayna soo maray waxay ahayd dawladda Soomaaliya inay burburtay inay Nairobi joogto in ay muxuu ahaa la soo marsiiyay Sacuudiga Yemen la soo marsiiyay Imaaraadka la soo marsiiyay in yacna ay 17 sano ka badan ay markii miyirka ugu dambeysay iyadoo jaamacad buugeed wadatay u sii socotay jaamacadii la foolo ummadda yay miyirku ka tagay meesha miyirka ugu soo noqdayna waa Nairobi iyadana waqti badan bay nagu qaadatay in maaragtay ay lala qabadsiiyo ugu dambaystiina waa ma sha Allah carabtay hadda degan tahay caruur badan bay dhashay shaariqa may cujmaan bay degan tahay ilaahay waa caafiyay alxamdulillah mawjada marka ficilo badan oo marka qaar kood tahawiro hadana waxa jirta mira leh sax gabadha markaan hadda u dhabagalay qalbigayga ilaahay wuxuu ku sharxay inay jirto cilad xiran oo gaar ahaan hadda cilad ka jirta xagga caloosha sidii bayna noqoto ilaahay subhanahu wa ta'ala waa igu guuleeyay iyadina ilaahay waa ku caafiyay
gurigoodaan ugu tagay meeshii cilaajka ahayd la iguma keenin dad yaroo naadira oo aan guryaha ugu tagay bay maaragtay ku jirtay ay ka mid ahayd marka waa ka mid waxyaalaha cajiibka ah waxaa kaloona soo maray oo cajiibka ka mid ahaa iyadana gabar wax cunno oo deequ aynan jirin haddii loo kariyo 10 kiilo baasta ah haddii loo kariyo muxuu ahaa loo bariisa haddii neef ariya loo qalo wixii la siiyo dam dadka qaar maanta halka hadda waxa ku waswaasi kara mogta hadday dhegeystaan waxaa laga yaabaa dadkan hadda shaawatu tacaamka ku dhaco kale inay isdhahaan ba anagana jimba cuntada lala cunaayo sooma dhici karto inay dhahaan baaba dhici karta marka waxyaalo badan baan qarinaynaa oo maaragtay carada ka badan gabadhii markii dambe waan soominay 5 maalmood markay qatanayd bay gabadh dhinacan jeeraa ka xoogtay 15 beri kadibna way bogsatay jimbaa ku jira jimbaa cuntada la cunayay balaayo wax deeqaya ma jiro 10 kiilo baasta haddii hadda loo kariyo daqiiqada kadib waa ku daysay bismillah yaa jin wax deeqsin kara marka waxyaalahaas oo dhan wayna soo mareen haddaad hadda dib ugu noqoto meelihii aan maaragtay waxyaalo badan oo aan islaa dadka ka faa'iidaystaan oo waxaa jira aan kaga hadlay yacni mucjizooyinka waxyaalihii la yaabka ahaa isku soo aruuriyo badnida tanawuca xanuunkan iyo siduu bulshada ugu faafsan yahay iyo sida dadka ka takhasuska u leh ay u yar yihiin iyo haddana sidaan loo fahansanayn oo maaragtay bulshadii aynan aqoon iyo cilmi ugu lahayn ayaa maaragtay iyadana qayb kaleeto oo mushkilad ah oo hadda maanta jirta maasha allah sheekh waxyaabaha ilaahay kugu fadilay waxaa ka mid ah allah ku barakeeye inaad diintiina taqaano oo caalim tahay mar kalena aad dhakhtar tahay labadaas fursadood qof inuu isku helo way adag tahay marka waa rajaynaynaa inuu ilaahay adigana kaa ajirsiiyo inta aad la soo dadaashay oo dhan su-aasha xigtaan raba inaan ku weydiiyaa waxay tahay xanuunka kale ee dadkeena dhibka badan ku haya waa gaaska qof yar iyo qof weynba maanta uu ka cabanaya maxaa sababa oo dadkan gaaskan u wada keenay sidees iskaga daweyn karaan ku hayo gaasku luqada carabiga horta gaazaad sideedaba waa hawo acid wadata hawo qof kastoo cunto cunaya hawaa calooshiisa tagaysa hawadaa caloosha tagtay weeye waxaa hadhow isu bedelaysa acidka ma maqlaysa qof baa wuxuu cunayaa cunto shaah buu la cabayaa shaah buu cabayaa hawuu liqayaa cuntuu cunayaa biyuu kula cabayaa cuntuu cunayaa soodho soo qaadanaya wuu iskaga dejinaya buu leeyahay duqaydeenna waxay leeyihin ardooyin baa hayay wadaado intay alaabta dejiyaan hawadii dirururug kan soodhuu dhallinyaradiina soodhay cabayaan wax markii la furo shanqari oo dhan waa acid waa hawo calooshay galaysaa wax kulul oo zaa'id u kulul baa la cunaya oo qofku u dhahahayo haddaan dhallinyarada ugu daro waxyaalaha oo lagu qoslo marmarka qaarkood waa lagu dhex daraay nin aan beri isku xer ahayn baa waan yar gaajaysnayne raashin baa naloo keenay raashinkii buu qaatay bismillaahi buu yidhi mar labaad markuu afka sii gelinayana bismillaahi buu yidhi waxaan ku yidhi waryaa bisanka labaad muxuu ahaa waxaan sii watay baaban ka cabsaday buu yidhi waa afka u sii waday mar labaad waxaan bisanka u qabsaday waxa afka aan ku sii waday intuu la ekaa wuxuu islawaad gaajaysan tahay raashinkii uu badsaday hadda lama ogola nabiga calayhi salaatu wasalaam innaga muslimiin baynu nahay dhibaatada inoogu badanahaysa waxaa weeyaan cilmigii diintiina waan ka jaahil baan nahay cilmigii caafimaadkiina waan ka jaahil baan nahay cilmigii madaniga ahaa iyo duruuf baahida yacni tamadunkii iyo waaye aragnimadiina waan ka fadhinaa dad la isku soo kuusoo hal meel la isugu keenay baan inta badan yaa loo badan yahay marka hawadaas la liqay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii hortiisa ku daacsaday salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu yihi kufa cannaa jusha'aka daacadaada nagala fogow ina akthara annaasi juucan yowma alqiyaamati akharuhum shabican fi dunya dadka maalinta yowma alqiyaama ugu gaajada badan waa kuwa ugu dheragta badan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa mala'a ibnu aadam wicaa'an shara min batnin mawjada weel ka shar badan oo calool uu bini aadam buuxiye ma jiro fain kaana laabudda 3 u qaybi
meel hawada ugu talagal, meel cunno biyaha, meelna cunnada ka dhig. rag baa intay wax kasta saa u dejinaya. hadda nin aan gelihiisii maqaloon saaxiib ahay kolkuu cuntada cuno kolkuu meel joogo lug buu fidsanaya, wuxuu leeyahay qaybtan in xagga gashaan rabaa, haddana lugta kaleu baxsanaya, wuxuu leeyahay xaggan fadhiguu bedelanayaa, intaa cunuu daldalaya. nin kaloo hadda isla geerihiisii maqaloo aan isku xer ahayn, kaaba isku xer baan ahayne, waxaan ku yidhi waryahay cuntadeed u fadhiisataa ood ka dheragtaa? wuxuu yidhi maan soo koobaa mise waan sharxaa? soo koob baan ku yidhi. saxanka haddaan gacanta ka laliyo uma fadhiisto yidhi. saxanka markii lasoo hordhigo u fadhiisto, hadduu gacanta dhinaca kale ay gacantiisu gaadho ma u fadhiisto yidhi. okay, waxaan ku yidhi marka maxaad ku soo gebagabaysaa? wuxuu yidhi kolkaan soo casheeyo in guriga usii socdo waxaan sii qaataa xabad mukaati ah kadheer, soo ma arag, xabad soo dhaho tan nus liitirka ah iyo caana tuuzo iyo aftir iyo abuu yidhi, af ku tirtirasho. haye ujeedaa dadki marka cunadii marka calooshii baa la buuxinayaa. calooshii markii la buuxiyo oon fursad la siinin, cuduradiga hawadaasna sidaas loo cabo oo waxyaalahan khaldan hawo ay calooshii gasho, waxaa hadhow bakteriyada iyo isu bedelaya, bakteriyada isu bedelaya soomaalida u taqaano H. pyloriyada loo yaqaano ama jurthum almacida loo yaqaano, hawadaasaa isu bedelaysa. waxaa weeye bakteriyadaasna waxay qabsanaysaa cufka caloosha derbiyadeeday isku dhejinaysaa sida caaradii, way isku nabaysaa, way boogaynaysaa, aalsadana iyadii unbaa noqonaysa. waxaa kaloon rabaa inaan idinku daro bulshada soomaalida xanuun la yidhahdo qolon ilcasabi bay soomaalidu qabaan iyo carabuhu. qolon ilcasabina waxaa weeye wax la yidhaahdo cunno elegy lagu leeyahay iyo waxyaala elegy lagu yahay, golotinka oo kale waxyaalaha qamandi waxa ku shaqa leh, qamandi waxa ku shaqa leh ayay maaragtay ku yihiin elegy ku yihiin. qolon ilcasabi marka waxaa weeye waa cudurro isku aruuray, calaamaad buu u yahay. gaas bay moodayaan inay qabaan, waxaa weeye maanta dhan dawo gaas bay cunahayaan, waxay qabaanna waa cunto ay calooshoodu diidan tahay. bahalka loo yaqaano matalan lactoska oo kale, lactoska ama gelatinka, waxyaalahaasoo dhan bay soomaalida iyo carabuhu inta badan waa isku, waxaad moodaa inay isku jiinaad yihiin, waxay ku yihiin elegy. qolon ilcasabi baa la yidhaahdaa. waxa qamandi ku shaqa leh oo dhan inuu qofku iska joojiyaa la rabaa, waxa macaan oo dhan inuu iska joojiyaa la rabaa. gabdhaha soomaalida oo iyagoo 15 jira ah inta badan ay ku imanayso waxa loo yaqaano maaragtay hormone imbalance uu ku imanayo. waxa mas-uulka ka ah aqlabku waxaa weeyaan cunooyinkan khaldan iyo waxaan macaaneeda daldalaya waaye. hadduu khalal hormoonkan loo yaqaano insulinka markuu khalalka ku imaado, intaas oo hormoon iyo intaas oo muxuu ahaa wax buu halaynayaa. gabadhii oo 15 jira oo 16 jira iyo dhiig furan ku imanaya, burooyin 10 bura makaankeedii yaa galaya. kulli waxa sababayana waxaa weeye khalalka, waxa weeye macaanadan faraha badan. bulshada Soomaalidu marka wixii uma kala soocno, waxay wax ku yihiin. qaar baa cuntadii oo dhan ka tagi oo waxay ku leeyihiin gaas baa ayaan qabaa. waxa dhibka keenayna waa wax yaroo mucayana oo hadday waddo cilmiya u maraan ay ka bogsan karaan. marka gaaska hadda ani bulshada Soomaalida waxaan ku dhahaa noloshu ka mid yahay. xabadiina kiniinka aan ku tuurto, dawana ha u daynina, cunana ha u daynina. laakiin gaas dawo wuu leeyahay bulshada Soomaalida, laakiin nooc neerfo ah uu ku noqday, lagama daweyn karo. waa in la dhaho uun kiniinkiinana cuna, dantiinana qabsada, wada kale ma jirto. kuwa aan qabin marka say iskaga ilaalin karaan cuntada inay waqtigeeda cunaan. cuntada biyaha laga daba cabayo in la iska daayo, biyaha ama 1 saac ka hor cab ama 1 saac kadib cab. hadda maalin dhexdeeda ahayd meel aan isugu imaanoon kelimo ku lahaa, niman odayaalaha waxay idhan ilaahay wuxuu yidhi kuluu washrabu, baa la yidhi waaba la isku cadfaybe, maxaa nooga celinaysaa bay dhan cabitaanka. war hadda cun oo cab baa lagu yidhi, ma dabada isu saar baa lagu yidhi. qur-aanku wuxuu ku yidhi cuna oo cabo oo waa ilaahay galladiise, ma waxaa lagu yidhi dabada isu saar. mithaal yar baan ku siinayaa. waxaad soo qaaday xaani, ismiid baad ku dartay, biyaad ku dartay, waad isku walaaqday, soo isma qabsanayaan. kolkay isqabsadeen haddaad biyo soo qaadood ku shubta ka war, ismiidkii xaggee aadaya? wuu kala daadan soo maaha.
cuntada biyaha laga daba cabahayo dheefshiidka meesha ugu muhiimsan waa afkan. calyadan aad arkaysid waxaa weeye waa waxyaalaha haadimada oo sabab ugu noqdo in maaragtay cuntadu ay shiidanto. meesha ugu muhiimsan dheefshiidka waa afka. qofku markuu ruugo balaayiin bilyan oo bacteria naafica ah yaa ilkaha hoostooda iyo ciridka ka soo baxaysa iyo canfadhka oo hoos ku jira iyo carabka oo dhan ka soo baxaysa. cuntadii bay isku duubaysaa. cuntadii iyadoo diyaarsan oo dheefshiidkii inuu ka shaqeeyo u diyaarsan iyo calooshii tagaysaa. saastay calooshii u tagtay bacteriyadii markaad biyo ka dabageyso bacteriyadii meesha naafica ahayd oo dhan dhulkaad la dhig sidii ismiidkii biyihii u bixiyeen iyo u baxaya. calooshii marka ma hadday dhalbi bacteria naafica ah iyo muxuu ahaa waxaan loo yaqaano maxay ahayd أنزيمات الهاضمة واحد لو يقان أنزيمات هاضمات لو يقانو أفقالات يعني اسكو في عنينه مسه ويشيدي أيضا كم مشغول صن إني وحصاد طاقات كذي وحي هيستي إني اسكو هجاتي ستة الديار صن بو هدنا عنك لك كرجين هدنا عنك لمس وبركو ككرجين تي أي آدو أفكر مركز دقاتي سقار بابا مركز عنتدي لسيو حنشي مركز عنا حنشي قادنا يعني calooshu marka waxay ku barogaraamsan tahay si automatically ilaahay ugu xidhay ilkahan dhaqaaqooda mar allaale markaad uu qofku xunjadii raamsado calooshii waxay haysay way joojin si ay u soo dhaweyso waxa soo socda. intee qofkii naftiisii calooshiisii iyo noloshiisii irbaaq gelinaya waxaa soo miiran weeye waxa sabab u ah in muxuu ahaa dadku gaasku uu imaado. cuntadan kulul ee la cunayo afka la furfurayo hooda lagu hayo waxaan wada kulul ee laga daba cabahayo aamuska muxuu aan tartiib loo aamusaynin cuntadan weyn afka la qalayo huba la leeyahay. qofku marka wuxuu iskaga ilaalin karaa cunada inuu waqtigeeda cuno. waxa cuntada baalka leh ee buunshaheedii iyo baalkeedii wadata in la cuno. waxaan ku darayaa cuntada Soomaalida ay qorraxda dhigayso in laga daayo. bulshada Soomaalida waxaan ugu baaqi lahaa cunto qorrax taala inaynan gadanin. dukaamada kale horay bay ku safaan halka wixii dukaankii oo cuntadii oo dhan wax allaala wixii wanaagsanaa ummadda ka gadahayeen qorraxdaas ay dhigahayaan. midhahan iyo waxan baxa oo dhan kolkay geedkooda ku yaalaan qorrax way u baahan yihiin. mar haddii laga soo gooyo in qorrax la dhigo lama ogolo. waa baaq aan maaragtay u dirahayo bulshada Soomaaliyeed si dadkan beecsharadooda qorraxda ka dhigtayna ay hoos u tagaan. bulshaduna ay uga nabad gasho cuntada dhimatay cunitaankeeda ay uga nabad galaan. bulshada Soomaalida hadda waa bulshooyinka ugu dhaqaale bixinta badan wax la cuno waana dadka ugu caafimaadka xun markii la yiraahdo. hadda qofka madowga ah laga yaabo inay 15 bishii dhan soo galayso ama ka yarba ay soo galayso. cunno waxay cunaysaa sax ah bay cunaysaa ama wayba ka gaajaysnaan. waxaa laga yaabaa inuuna isbitaal dawo ka qaadanin. bulshada Soomaalida cunadii ugu qaalisanayd bay soo gadanaysaa iyagaana ugu badan marka isbitaalada tagto iyagoo wax yar ka nahay bulshada Kenya markii loo fiiriyo waa waxaas weeye waxa dhibaatada ku haya bulshada Soomaaliyeed. gaaska marka waxyaalaha looga gaashaaman karo cuntada nool. ani hadda waxaan ku dhahaa cuntada soo gado intan in leeg ciid soo dhigo gurigaaga hortiisa ku shub biyo ku shub hadday soo bixi weydo ha soo gadanin. shay aan abuurmaynin cunin. idan hadda hilibka iyo qudaarta kaleeta iyo waxyaalahan hadda iyagu dhib male laakiin midhaha wax haddaad dhulka ku shubto aan soo baxaynin ha cunin gurigaaga ha geynin. cunno baalkii laga saaray oo bahalka loo yaqaano viruska ama alyaafteedii laga bixiyeyna ha cunin. ma ujeedaa ha faa'iido ba male wax faa'iido oo ay leeyihiin ma jiro. ilaahay iyadoo iswadato ugu talagalay macaadinta iyo fitamiinada iyo amino acidyada waxay ku jiraan isha iyo beerka. kolkii la baalka laga saaro waxaan jeedaa baalka iyo isha iyo beerkii ku jiraan saddexdaabana markii laga bixiyo way dhimanayaan. adiga waxaad cunaysaa un marka wax on lagu cayili xoogaa lagu buuran mooyeen aan nacfi kale ku lahayn. marka bulshada Soomaalida dhibkaas ka jira gaaskii haba yaraatee yani qaab nin baa beri Soomaalida markay qabiilka isku leeynayso muxaadaro u istaagay dadkii buu fiiriyay iyagoo wada uu qabiil ku mashquulsan. markaas wuxuu yiri idin waanin maayo wallaahi inaan hortiina ku calacalaynin
wuu iskaga degtay mimbarkii khudbadii buu diiday maalin dambaan ku nilo wuxuu yidhi hadda qabiil baa ka buuxi haddaan hadda ilaahay ka cabsada ayada ku akhriyo indhahoodaan u jeeday buu yidhi wax yeelayaad ma jiro bulshada soomaalida marka caada cun baa qaalib ka ah waxaa weeye wixii cilmiga ahaa waxaaba laga yaabaa inay kulayba yaabaan markaad u sheegto marka aad baa u mahadsan tahay su-aalihiin waxay u muuqdaa inay gabagaboobeen sheekh aad baa u mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay insha allah haye baaraka allahu fiik mahadsan tahay sheekh